hogaamiyihii laga adkaaday ee koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo koox isaga ka amar qaadato oo wasiirkiisa amniga uu ku jiro ayaa ku hanjabaya in madaxweyne Xashi Maxamuud uusan ku sii sugnaan doonin magaalada Baydhabo ee gobolka Baay iyaga oo tiro hoobiyaal ku soo garaacay magaalada maanta sida wararku ay sheegayaan shalay oo Jimco ahayd ay garoonka diyaaradaha dhowr hoobiye ku garaaceen oo madaxweynaha loola cararay madaxtooyada koonfur galbeed gaarigiisa bulletproof ka ahna lagu riday xalay ilaa iyo maantadan kulamo ayaa ka socday gudaha magaalada la yiraahdo markaasi Baydhabo ee gobolka Baay waxay ku hanjabayaan in magaalada dib ay ugu soo laabanayaan waliba wax ay yiraahdaan RRA ay dib u soo kicinayaan magaalada Baydhabo ee gobolka Baay xaaladeedu waa qir iyo qir oo waxaad ogtiin in ku sugan yihiin wafuud isdiidan madax isu jaakiraysa iyo xubno kale oo aad u badan oo dhibaatooyin iyo colaad sokeey ay dhex taalo oo kursiga isku haya waxa halkaas ku wada sugan 5 ilaa 6 qof oo mid walba uu doonayo inuu noqdo madaxweynaha koonfur galbeed ee bedeli lahaa Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen laakiin madaxweyne Xashi Maxamuud waxa loo jeedinayaa inuu isaga soo tago magaalada Baydhabo magaalada amnigeedu uusan sugnayn ciidamo kala nooca joogan hoobiyaal lagu garaacayo xitaa isaga meel u muuqato tiro hoobiyaal shalay ay ku dhaceen waxa leeyahay madaxweynuhu waa inuu naftiisa kala soo baxdo magaalada Baydhabo ee gobolka Baay laakiin madaxweynuhu wuxuu leeyahay inta maamul halkan laga dhisayo kama tagayo haddaba madaxweyne Xashi Maxamuud wixii gaara mas'uuliyadooda yaa qaaday mase ku saxan yahay madaxweynaha inuu nafta ag dhigo magaalada Baydhabo ee gobolka Baay si looga qabto doorasho qof iyo cod Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya ninkii u camiray lafta gareen ee laga adkaaday ayaa soo hadlay kadib jabkii ku dhacay war weyn ayuu ninkan markaasi ka dhawaajiyay haddaba hadalka lafta gareen muxuu ku qotomaa maxaa ka socda magaalada Baydhabo kadib isbedelkii dhacay wararkaas oo dhan ayaan soo koobaynaa saaxiib soo dhow haddii aad channel ku cusub tahay gacanta saar oo subscribe dheh muuqaalka like saar oo saaxiibadaad u sii share garee mahadiga ka gaadho waa maasan tahay saaxiib waxaan mowduuceena ku bilaabayaa magaalada Baydhabo ee gobolka Baay oo shalay oo Jimco ahayd uu tagay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xashi Maxamuud waxa ka socda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed kulamo iyo abaabulo dhinacyo kala duwan markaasi ay yeelanayaan siyaasiyiin ayaa halkaasi tagay oo aad u badan waxa ku sii qulqulaya wafuud iyo madax waxa magaalada ku sugan xubnihii ugu badnaa laakiin tiro hoobiyaal ayaa magaalada lagu soo garaacay ciidan Maleeshiya ayaa dul dhooban oo diinsoor iyo inta u dhaxaysa magaalada Baydhabo waxa la sheegay in ciidan aad u badan ay buuxaan ciidankii dowladda gudaha magaalada iyo hareeraheeda aan ka fogeyn kaliya ay ku sugan yihiin laakiin masaafo dhowr 20 kiiloomitir markaasi ay joogaan kooxaha argagixiso iyo koox kale oo wasiir Xasan Cabduqaadir wasiirkii amniga ee koonfur galbeed ee lafta gareen saaxiibkii ah uu hogaaminayo ay joogaan oo ay ammaan ku carqaladeynayaan sida wararku ay leeyihiin madaxweynaha Soomaaliya tala loo jeedinayo oo leeyahay ku dhiman Baydhabo ee isaga soo tag naftaada madaxweyne ayaa ka muhiimsan wax kasta oo siyaasadda oo la isku hayo magaaladan isaga soo tag ayaa leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxa haatan ka socda dhaqdhaqaaqyo xoog leh iyo kulamo siyaasadeed oo looga arinsanayo mustaqbalka koonfur galbeed maadaama uu dhacay isbedel weyn oo ku yimid hanaanka maamulkaas kadib markii meesha laga saaray madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen hogaamiyaha ku meel gaarka ee South West Soomaaliya oo dhawaan ay magacaabay dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Jibriil Cabdirashiid Xaashi ayaa kulamo ka bilaabay magaalada isagoo oo xalay la kulmay qaar kamid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed waxaana diiradda la saaray xoojinta nabadda iyo wadajirka bulshada waxa ugu horeeya waa in ammaanka la sugo bulshaduna aan la kala geyn oo dadku aan la kala faquuqin oo aan loo kala dowladeen oo si isku mid ah markaasi loogu adeego ujeedka kulankan ayaa ahaa dardaaranka ama dardargelinta dadaalada nabadeynta iyadoo oo hogaamiyuhu uu odayaasha kala hadlay doorka muhiimka ah ay ku leeyihiin ilaalinta xasiloonida iyo dib u heshiisiinta bulshada dhexdeeda sidoo kale Jibriil oo madasha ka hadlay ayaa adkeeyay in koonfur galbeed markaasi mudnaan gaar ah ay siinayso nabadda iyo sidoo kale nabad ku wada noolaanshaha shacabka dhexdiisa sidoo kale dhankiisa madaxweyne Xashi Maxamuud ayaa xalay kulamo magaalada kula yeeshay xubno aad u badan oo isugu jira saraakiil odayaal dhaqan siyaasiyiin iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xashi Maxamuud ayaa xalay hoygiisa magaalada Baydhabo ee madaxtooyada waa qasrigii lafta gareen waa kursigii uu ku fadhiyay lafta gareen ka uu ku fadhiyay madaxweynaha kaliya calankii koonfur galbeed ayaa laga leexiyay midka Soomaaliya ee buluuga ah ee shanta xidig dhexda ku leh ayaa markaasi laga taagay taasoo muujinayso in rejiimkii hore halkaasi ay ka shubeen oo laga adkaaday madaxweynaha wuxuu la kulmay isaguna odayaal dhaqan culimaa diin iyo siyaasiyiin waxaana kulanka uu ku ballan qaaday in si dhow ay markaasi ula shaqeyn doono
ama uu shaqeyn doono maamulka nabad waarta iyo horumar laga gaaro deegaanka. madaxweyne xasan maxamuud waxa halkaas kula sugan xubno kamid ah wasiirada iyo rag kursiga raba. kow kursigan waxaaba doonaya aadan maxamed nuur madoobe gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ninka aad ogtihiin in markaasi baarlamaanka uu muddo wax u eg afduub ku haystay oo eedeymo kala duwan loo jeeday oo aadan ansax loogu magac daray oo la yiri waa gacan yara xasan sheekh wuxuu u shaqeeyay xasan sheekh la yiri isagoo gudoon baarlamaan kursigu doonaya. cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo loo yaqaan wasiir TikTok isaguna wuxuu rabaa kursiga waana wasiirka dekedaha isgaarsiinta xukuumadda waana xasan sheekh saaxiibkii. xuseen sheekh maxamuud nin lagu magacaabo xisbiga UPD oo haddana la magac baxay markaasi JSB ay isaguna waxa uu doonaya kursigan. sidoo kale waxa raba Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur. intaas kaliya kuma eko xasan eelay dhinaciisa xusul duub ku jira oo wuxuu rabaa in kursigan uu soo ku guuleysto. waxa la leeyahay kursiga lafta garan oo ka kacay shida ayuu bakaaray rag saaxiibo ahaa oo hal saf ku wada jiray laha aan ridno odayga ayaa dhammaantood mid walba ay quudareynaya in kursiga uu qaato. madaxweyne xasan maxamuud wuxuu kala garan laayahay qof uu kursiga siiyo dhammaan raggan way la shaqeeyaan waliba si hagar la'aan xitaa ku meel gaarkii waxa laga dhigay nin garra ah oo Jubbaland laga soo doorto oo reegada ah. sababtuna waxa weeye in midkood hadii madaxweyne ku meel gaar laga dhigo shaki iyo muran badan uu dhalanayo taasina madaxweyne isagoo ka cararaya dhammaan waa ka wareejiyay Beeshir Xaween wuxuuna u wareejiyay dhinac garre. haddaba magaalada Baydhabo ee gobolka Bay madax culus ayaa ku sugan xasan maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaano wasiiro saraakiil ciidan oo ay ku jiraan taliska ciidanka ninka ugu sareeya waa taliyaha ciidanka xoogga dalka Generaal Ibrahim Maxamed Maxamuud taliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute taliyaha booliiska Soomaaliyeed Generaal Asad Cabdullaahi Cusmaan Diyaano ninka asluubta dhawaan lagu wareejiyay ee taliye shub bedelay Generaal Xaamud ayaa isaguna ku sugan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. saraakiish xoogga dalka kuwii booliiska kii maxkamadaha kii maxaa la oran jiray kuwa baambeeda tuma ee la yiraahdo markaasi asluubta waxaas oo dhan saraakiishooda waxay ku sugan yihiin magaalada Baydhabo. awaamiir la kala qaadanaya magaalada amnigeeda laga shaqeynaya dawladda ayaana laga shaqeynaya. sidoo kale waxa la dalacsiyay saraakiil magaalada Baydhabo gacanta ku soo dhigo madaxweyne xasan maxamuud uu darajooyin ciidan ka tahay waxaana saraakiishaasi ay gaarayaan sodomeeyo waana la dalacsiyay. sababtu waxay tahay in markaasi si nabada magaaladu ay ku qabteen ka adkaadeen maamulkii jiray ayna mutaysteen abaalmarin ah in darajooyinkooda kor loo qaado sida madaxweyne xasan maxamuud uu markaasi sameeyay. geesta kala daawadayaal hadaynu eegnana gudoomiye hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo kamid ahaa siyaasiyiinta taageerada u muujiyay madaxweyne lafta gareen ee ugu tagay Baydhabo ayaa ka hadlay markiisii ugu horeysay kadib jabkii ku dhacay isagoo oo kamid ahaa xubnihii ka cararay magaalada markii ay soo galeen ciidamada dawladda. Mursal oo qoraal dheer soo saaray ayaa eedeymo u jeediyay madaxweyne xasan maxamuud iyo dawladdiisa isagoo oo sheegay inuu burburiyay maamulkii sharciga ahaa ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in tallaabada ay qaaday dawladda dhexe ay dhaawacayso nidaamka federaalka iyo dawladnimada dalka. faragelinta dawladda federaalka ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo burburinta nidaamka federaalka waa duulaan cad oo dawladda ay ku qaaday awood ciidan iyo amaro ka baxsan habraacyada dastuurka lagu fuliyay ayuu yiri ninka la yiraahdo Maxamed Mursal. wuxuu si toos ah markaasi u sababay burburinta maamulkaas madaxweyne xasan maxamuud iyo saraakiishii kala shaqeeyay. tallaabadan ma aha buu yiri oo kaliya mid markaasi ka hor imaanaysa sharciga balse waa mid si weyn u dhaawacaysa jiritaanka nidaamka federaalka iyo dawladnimada dalka ayuu qoraalkiisii raacay Maxamed Mursal. Koonfur Galbeed waa dawlad goboleed si sharci ah u dhisan kuna salaysan dastuurka ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya leh hay'ado fulineed iyo sharci dejin oo markaasi si nidaamsan u shaqeeya ayuu yiri madaxweyne aan dhahda ee gudoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. hase yeeshee waxaa si cad u muuqato in maamulkii sharciga ku dhisnaa markaasi la burburiyo oo mid kale oo aan sharci ahayn la geeyay ayuu yiri Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Mursal ayaa ahaa nin aad ugu dhow lafta gareen kursi hore u soo siiyay saaxiibana ay ahaayeen laakiin rejiimkii la raacdeeyay ee laga fogeeyay magaalada Baydhabo ayuu qayb ka noqday. sidee baad u aragtaa safarka madaxweynaha yaa noqon doona madaxweynaha Koonfur Galbeed tallaabada dawladana aragtidaada ku aadan noo reeb waa mahadsantahay. meeshaas siyaasadda qaranka ama siyaasadda kor dawladdu waxa kugu matala xisbiga aragtidiisa dadka waa ka gadi kartaa meel kastoo aad joogtid xisbigu doon ha ahaado councilorkaas
laakiin waxaan rabaa inaa ogaatiin aad ha ugu mashquulina arrimaha siyaasadda, aad ugu mashquula adeega bulshada. bulshadeenna waxa ay la'dahay waa adeeg, dadka waxa ay la'yihiin waa adeeg. lacagaa laga qaadaa meelo badan, dadku waxay dareemayaan lacagta laga qaado inaan wax loogu qabanin. dadku waxay dareemayaan lacagtii laga qaaday dhammaan yaa wax loogu qabanin, wax ka mid a xataa in wax loogu qabto. waagii kambeynka aad ku jirteen ololaha doorashada la rajaynayay ayaa waxaan fiirsanayay dhalinyaro albaab guri inta tegey hooyo ka furta guriga u sheegeen codka gurigan dadka degan codkiisaan rabnaa, xisbigaasaana la yiraa ABCD. islaanta waa fiirisay, waxay tiri haddaan idin doorto maxaa idinka dheefaa? ilaa weligeed wax u socdo idooro dhahaana ma arag, wax inta u yimiday ballan la galo oo waxaanaan kuu qabanaa waxaanaan qabanaa dhahayana ma arag. marka waxay tiri adiga sideena maxaa idinka dheefaa haddii laydin doorto? waa isfiiriyaan dhalinyaradii gabara u hadashay, wadada albaabka ay taagan yihiin wadada hormartaa biyaa jeexay, waa jeexan tahay. markaasa waxay ku dhahday hooyo wadadan biyuhu jeexeen ayaan kaa hagaajinaynaa. yacni waa waxa ugu sahlan aad arki karto. iskoolaan ku dhisaa iyo maxaan ku idhahdaa iyo waa sheeko ayan u jeedin, ma laga yaaba in ilmiheen iskool inay aadaanba oo hadda mushkiladda ugu weyn wadadan oo sanad walba biyuhu ay kaa jeexayaan, biyahaasaan maaraynaynaa, gurigaaga hortiisa inuu nadiif ahaado oo meel fiican ahaado ayaan ka shaqaynaynaa haddaadna dooratid. ma yeelaysin sidaas? waa yeelaynaa, ballannaas waa idin dooranaynaa. marka dadku waxay rabaan wax la taabo karo, la arki karo, oo waa la qabtay lama qaban biri idin dhihi karaan. maalintaa isugu yeertiin inay idin warsan karaan, ladinkula xisaabtami karo. biri maanta ballantaa iiga baxday biri ku dooramaa in lagu dhihi karo. teramka kuu dhammaado iska joog, laakiin ku dooramaa. ilan qof walba in la doorto ama meesha kasii sarraysa loo doorto u rabaa. waxqabadku wuxuu ka mid yahay rikoorkaaga siyaasadeed. mas-uuliyadda markaan haayay aniga 1 2 3 qabtay, haddana 1 2 3 kale inaan qabtaan rabaa. waa waxyaalaha dadka aad la soo hor istaagi kartid. laakiin haddaadan waxba haayin, waxba aadan qaban, maxaa sheeganay? waxaa dad beena sheegtay xataa beentaa waa lagu dhahaa, annagaa joogna meeshaan waxa ka qabatana male, raalli ah baa lagu dhahaa. qof walba ha ku fakaro mar walba dadka waxaad ka rabtay waa ka soo heshay. inay cod ku siiyaanaad ka rabtay, degaankaaga dadka degan inay cod ku siiyaanaad rabtay waa ka soo heshay, codkii waa ku siiyaan. hadda adiga marka waxay tahay mushkiladaada inaad ka fakartid dadka maxaa u qabanaya, maxaa u qaban kartaa, intee see wax ugu raadi kartaa, see wax ugu hayo waxooda sida ugu fiican oo suurtagalka loogu maamuli karaa. cashuurta sidee loo qaadi karaa ayadoo la tixgelinayo duruufaha dabcan dadka ay ku nool yihiin. cashuurtii laga qaadayna sida ugu fiican loogu maamuli karaa. cashuurtaasi dadka waxay u baahan yihiin oo degaankooda waxay uga baahan yihiin, gobolka waxbay uga baahan yihiin, qaranka waxbay uga baahan yihiin. inahaasoo dhan maa cashuurta u qaybqaybsamay, laakiin intii loo soo reebay ee la yidhi degaankan waxa loogu qabto. hadda waxaa laga yaabaa degmadii lagaa soo doortay budget miisaaniyad ma laha, waxba ma laha, waxba waana laga qaadaa, cashuurta waa laga qaadaa. marka ha yaraata hadday doonto, inkastoo dee dowladdan qaranka Soomaaliyeed eed arkaysaan oo dhan oo wax walba u taagan la dagaalanka argagixisada, dhisidda dowladda, diblomaasiyadda caalamiga ah. yacni intaad aragtay shaqaalo from diblomaasi laga soo bilaabo New York iyo Geneva fadhiya ilaa lagu keeno gabadha muxuu ahaa dhulka laamiga noo xaaqaysa, inta u dhaxaysa shaqaalaha dowladda jooga mishaar la siiyo. mishaarkaas la siiyo iyo waxa difaaca, amniga, ciidanka, waxa aad arkaysiin waxa wax oo dhan horta cashuurta gobolka Banaadir laga qaado waa. meel kale ay wax uga yimaadeen malaha, bal cashuurtaas gobolka Banaadir laga qaado ayaa dowlad goboleedyada in badan oo kamid ah wax laga siiyaa, amnigooda lagu soo booliis stationada dowlad goboleedyada ku yaala 80%
بوليس كجوجا بوليس فدرال أو دولة فدرال كأي بحسوا قرش كيس إن بدن دكسيدو كويا على معلمين تجوجتا ومعلمين بيرول كدولة فدرال كوجرت أو دولة فدرال كالعكتي أي بحسوا marka waa garan kartaan culayska intuu la eg yahay waxyaabaha dadka oo diidan nidaamkan dimuqraadiyeynta iyo local councilska iyo waxaan iyo in la dadejiyo xukunka hoos loo dajiyo waxay leeyihiin war dadkan la doorto hore aniga biri waa la doortay aniga ma yeelay dadkayga lacagtiisa intee la geey intee laga dhaco dhaha intee la geey inuu dhaco xaq u leeyahay laakiin waa loo sheegaa meeshii la geeyaa loo sheegaa saan waa run in la xisaabiyo oo war meeshan lacaga laga daldalay xagee lacagti xagee aad war intaan xagee ku baxday intaan xagee ku baxday intaan xagee ku baxday in la isiraado way furan tahay laakiin institutionska dawladnimada dhexdeeda isku leenahay ma isku dacaadeynayno ma isku caynayno ma isku aflagaadeynayno muxuu ahay mechanism dawladdu lagu xisaabto markaasaan u marayna laakiin dadkaaga codkooda inaad ku hadashid oo masaalixdooda aad ka hadashid marka la siyaasadda markaa masaalixda qofka siyaasad maaha cashuurtii laga qaaday dadkayga xagee ku dhammaatay inaad tiraad siyaasad maaha dadkaani abuusa lagu hayaa waa lagu xadgudbooha dhibaa lagu hayaa inaad tiraad siyaasad maaha ayagana sidoo kale waxa ku maqan dowladnimada waxaan idinkama mudnaan dhaafa inaad tiraadid ama waxaanay dowladnimada idinka mudan tahay keena inaad tiraahidna ayadana siyaasad maaha waa sidoo kale marka dhalinyaro mar kale waxaan idin leeyahay hambalyo waa isku soo noqnoqon doonaa laakiin waxaan rabaa gacmo daahir ah wax daahiriyaa la yiri war adiga horta qalbigaaga iyo niyadaada aragti yeelo aragtida aad yeelanaysidna kuwii la lahaan jiray adoo wax cusub raadinaya khaldan laakiin wixii shal lagu soo qaldamay intaa ku noqotid haddaa qaldantid qof dabaalaha tahay wax kaloo lagu fidbaa laakiin adoo wax cusub iyo tallaabo cusub iyo maxaan ku irahdaa innovation raadinayo fikir cusub dhalinaayo wax cusub curinaayo haddaa khaldantid waa lagu qaadan karaa waa la aqbali karaa ha laakiin shalay kii kaa horreey meesha ku qufay oo ku qaldamay oo kii kasii horreey oo ku qaldamay haddana haddaad ku qaldanta adiga dee markaas damiinaad tahay qof damiinaad tahay lagu dhaha ama waa ugu talageliyaa lagu dhaha kas ula kac u yeela la dhaha waa ogaay in meeshaan waddadaani aanay meel tegin waa ogaay waa lagu dhaha dadkeenna isbeddeluu u baahan yahay isbeddelku waa xanuun badan yahay waa dacaayad badan yahay waa lagu dacaayadaynaa waa lagu eedaynaa haddaad eedda ka cararto oo dacaayadda ka cararto oo reer hebel iyo ku eedin aad istiraa oo saaxiibkaa hebel ama saaxiibadaa hebel yaani ku eedin aad istiraa oo waxaan amaa ku fashilantaa aad istiraa meel tegi maysid ogow bartiis yaqaan bar uma korortaan noqonin wixii la samay jiray waa naqaanaa wixii nooga soo bixi jirana waa naqaanaa waana anfici waayeen inaan soconno oon meel cusub iyo wax cusub iyo waxa aan rabno oo qalbigeenna ku oodan inaan tagnaan rabnaa marka dhalinyaro mar kale iyo mar kale waxaan aad iyo aad idinku dhiirigelinaa idinku bogaadinaa in aad waxqabad u dhaqaaqdaan maxaa u qaban kartaa degaankaaga war maxaa qaban kartaa 1 2 3 baahiyadooda ka jirto ma qaban kartaa maya maxaa qabataa halkaanaan qaban karaa halkaas qabo kaas ma qabsooma haa muga tiraadaad kuwa kale u soo jeesan kartaa deegaanada baahida ka jira waa badan yihiin